askarta socota ee deegaankan ku dhimanaysa ku dhaawacmaysa deegaankan uma dhalan dhamaantood Soomaali waaye Soomaalinima inta keentay dawladda inta keentay in loo hiili waayo la garb istaagi waayo dawma maalin kasta ay dhimanayaan maalin kasta ay dhaawacmayaan hooyay dhashay ka dhimanayaan aabbo waayo caruur ka dhimanaya maxaan ku raadayay waa deegaankan deegaankiisii ma aha dadkan ku heeb ma aha haduu doono naftiis wuxuu keenay Soomaaliya iyo calankaas buluuga ah in kor loo qaado maada idii kartid waatan oo dad qaraaba aan kala fogeyn inta qoryo la isku qaatay eber la iska dhigay walaalkaaga deriska kula ka beerta kula wadaag kan maxaan ku raadada wadada kala dhaxayso kad hayb ahaan aad sheeganaysaan meel fog eedan kala jir ka leex hadoo ku dulmina xataa walaal waa dulminaysa xataa iska dul qaado iska keydil dul kala iga ka daran ninkii yiriyo kala waay maanta dhaxdeena cadaawad ka timaaday dul nooga daranaa jooga oo ay tahay inaan indhaha ku taagno aan fiirino dhaxdeena ma aha horta kaas waa dardaarmayna mar walba akhyaartiina meesha fadhido nabadda iyo midnimada in laga taliyo si cadawga loogu midoobo ina dhaxdiina heshiistiin nabad tihiin colaadi aan idin la jirin colaadi markay timaado nin xoog leh in laga xoog badan yahay maaha kan laga xoog badan yahay inta qoosoo la ilaa biriga laga xoog badiyay dhihi maaye inta baxo kaalmo doonana kaalmada ugu horeyso meesha ka doonana nimanka cadawga aan la dirirayno waay ayu kaalmo ka doonana adiga marka hadaadan cadawgii ciidan u yeelaynin dadkii deegaanka soo dhaweeyay ciidanka marka la yiraahdo ciidankana waa u moraal kuwa kale oo shabaabku wali ku habsadayna waa u aragti oo waa ku dhiirasho ay u noqonay iyo hoga tusaaleyn ay u noqonay dawladuna garab ay u noqonay dawladdaadii aad garab istaagtay wixii dawladda kaligeed laga sugi lahaa aad ku garab siisay inaad dawladda garab siisid marka dawladuna waa ku xoogaysanay waxa laga rabaana waa soo degdegayn ciyaw intii la tacaali lahaa muddo dheer shabaab dadku hadaanay ku kici lahayn oo gobolka muxuu ahay dawladdan Hirshabeelle oo Hiiraan Hirshabeelle dhaxka oo Hiiraan looga kici lahayn oo tuulo kastoo Hiiraan joogto looga soo bixi lahayn oo Shabeellada dhexe sidoo kale aan muxuu ahay loo soo kici lahayn inta badan looga soo bixi lahayn dadku hadaanay kici lahayn oo istaagi lahayn dawladda kaligeed waqti dheer ay ku qaada lahayd inay intaan soo gaarto maanta meesha la joogo waxa lagu soo gaaray garab istaagga dadka lagu soo gaaray marka waxaan rajaynayaa in aad si xoojisaan oo aad maxaan ku iraadayay garab istaaggaasna aad xoojisaan